saaxiibada waa salaamantiin kusoo dhawaada barnaamijkan update-ka ciyaaraha qodobada ugu dambeeya soo dhacayaan kusoo qaadan doonaa ciwaanka ugu weyn waxaa qaatay laacibka lagu magacaabo Lisandro Martinez maadaama hadda Man United si official lagu dhawaaqday sidaan ka warqabno wiilkan wuxuu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta Ajax sida daraaddeed haddaba official deal dhan ninkan loo kala baxay waa ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta Manchester United sida hadda kooxda Man United ay baraha bulshada shaaca ugu qaaday Lisandro saaxiibada kooxda kubadda cagta Man United adoon lacag gaaraya 55 milyan ay ku soo qaatay sidoo kale wiilkan wuxuu صحيح heshiis gaaraya heshiis 5 sano ayuu qalan ku dhow wuxuuna option u haystaa hal sano dheer inuu heshiiskiisa ku dari doono waxa kale oo shaaca laga qaaday wiilkan weegi kooxda Man United wuxuu ka qaadan doonaa adoon lacag gaaraya 120 kun ay ku shaqeyn doonaan ogaada saaxiibada Man United waa saxiixii saddexaad ee hadda xil ciyaareedkan sameynaysa maadaama ay hore u soo qaadatay lagu magacaabo Tyrell iyo sidoo kale waxay soo qaadatay Christian Eriksen hadda ninka lagu magacaabo Lisandro Martinezna wuxuu noqonayaa ciyaaryahanka saddexaad ee kooxda kubadda cagta Man United la soo wareegaysa wiilkan wuxuu ka dheelay qalbada dhexe daafac ayuu ka dheelay waana center back sidoo kale xulkiisa kubadda cagta Argentina oo u ciyaara sidoo kale sanadka 2019 ayuu xulka u ciyaaristiisa bilaw sidoo kale koobka ugu dambeeyay xulkiisa Argentina oo kula guuleystana waa koobka loo yaqaan Copa America ayuu la qaaday haddana waayihiisa wuxuu kaga bilaaban doonaa garoonka Old Trafford macna Erik ten Hag ninkan si fiican isku yaqaan maadaama hore iskala soo shaqeeyeen kooxda Ajax sida daraaddeed mustaqbal ifaya ayaa u rajayn doonaa wiilkan dhalanta yar ciwaanada kale aan soo qaadan karno waxa kamid ah saaxiibada walla ninka lagu magacaabo Lewandowski wuu hadlay ninkan waxyaabo badan ayuu iftiimiyay sidaan ka warqabno Lewandowski waxa qaatay kooxda kubadda cagta Barcelona sida daraaddeed ninkan wuxuu la hadlay saaxiibada shabakada loo yaqaan Bild wuxuu yiri Shaafi wuxuu ii sheegay inaan si fiican u wada shaqeyn doono wax badan aan ka gaari karno guul sidoo kale wuxuu yiri waxaan sidoo kale wuxuu yiri saaxiibada qiimaha badan Shaafi wuxuu leeyahay qorshe cad sidoo kale wuxuu diyaar u yahay Barcelona inuu dib u dhis xoogan ku sameeyo sidoo kale Barcelona level ka taagnina inuu dib u soo celiyo sida daraaddeed midaas anna waan ku faraxsanaa waxa kale uu yiri saaxiibada qiimaha badan waxaan Barcelona u imaad in meeshaan shaah u imaanina waxaan u imaad halkan Barcelona halkan waxaan u imaad inaan koobo badan Barcelona la qaado sida daraaddeed wuxuu yiri waan ogahay inaan 34 jir noqon doono gordho laakiin wuxuu yiri waxaan dareemayaa jir ahaan inaan xoogana sidoo kale maskaxaana aan xoogana barkana waxa u imaad inaan halkan koob aan kula guuleysada daraaddeed Lewandowski warkiisana wuu cadeeyay maanta barnaamijyadina Rubax saaxiibada waxa ay doonayaan in kooxda kubadda cagta Manchester United ay ku adkaanayso qaadista ninka lagu magacaabo De Jong sida daraaddeed Frank De Jong oo iska diiday Barcelona inuu Frank De Jong wuxuu iska diiday inuu soo aado kooxda kubadda cagta Man United sida daraaddeed Man United fadhiyo oo ma yar hadda Man United saaxiibada waxay doonaan tilka lagu magacaabo Ruben Neves sidoo kale wiilkan wuxuu ka tirsan kooxda kubadda cagta Wolves waana 25 jir sida daraaddeed Sunday Express waxay leedahay Barcelona Sunday Express saaxiibada waxay leedahay Man United waxay xoog isku geyn doontaa si ay ku soo qaadan wiilkan lagu magacaabo Ruben Neves kaasoo saaxiibada asna qadka dhexe ka dhigay sidoo kale wiilkaana waa kubad sameeya ciwaanada kale aan soo qaadan karno waxa kamid ah kooxda kubadda cagta Rangers saaxiibada qiimaha badan waxay toos ugu wada xiriirtay kooxda kubadda cagta Liverpool waxayna ka rabtaa wiilka lagu magacaabo Ben Davies sidoo kale doon lacag gaaraya 4 milyan ay kooxda kubadda cagta Liverpool ku wareejin doonto sidii kaga soo qaadan lahayd wiilka lagu magacaabo Ben Davies sida daraaddeed saaxiibada ciwaanada ugu kulkulada jira kubadda cagta waqtigan oo inta saaxiibada qiimaha badan ciwaanka ugu weyn waxa qaatay wiilka lagu magacaabo saaxiibada Lisandro Martinez ciwaanka ugu weyn qaatay maadaama hadda si official ugu dhawaaqday kooxdiisa kubadda cagta Manchester United hadda waxa ka leedin saaxiibada kooxda kubadda cagta Manchester United oo dib u dhis xoogan isku sameeyay sidoo kale saddex saaxiibada qiimaha badan saxiixna sameeyay sidoo kale haddana wali suuqa meesan ka bixin ciyaaryahanka kale baad goob xoogan ay ugu jirtaa sida daraaddeed waxyaabaha kale soo dhacna barnaamijyadan damay ku ogaan doontaan hadda qodobka waxa ka leedin soo qaadashada Man United soo qaatay wiilka lagu magacaabo Martinez aragtida comment nooga beeray haday taa markii kugu horeysay boqon channelka subscribe noo saar sidoo kale loogan ina muuqaal kale noo saarto aragtida comment noo qeyb hadaa kamid saaxiibada hore noo joogay muuqaalka share si saaxiib wanaagsan sidoo kale channelka ugu soo biran intaan barnaamijka ku kulmino amaana Allah salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh